runtii waxaan ka hadli doonaa go'aan mar dhaweyta ka soo baxay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo uu joogay oo uu fadhiyay oo aanu ku eedaynana inuu wax ka qoray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi go'aamadaas oo ay soo saartay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo madaxtooyadu waxa uu dhigayaa qodobo aad u fara badan wixii sharciyana sideeda ayuu dhaqan gali doonaa wixii aan sharci ahaynna cid aqbalaysa ma jirto marka hore xisbiga wadani wuxuu aad iyo aad uga xun yahay dhibaatadii ka dhacday shalay toole garoonka kubadda cagta Soomaaliland waxaan halkan ugu ducaynayaa in Ilaahay caafimaad sareecan siiyo dhammaan dadkii ku dhaawacmay ee ay wax ka soo gaareen arbushaadii iyo dhibaatadii shalayta ka dhacday garoonka runtii garsoorka kubadda cagta uu lahaa khaladkeeda iyo ciidanka booliisku shalay toole ciyaartii dhex martay gobolada Daadmareed iyo Hawd ciyaar aad iyo aad u fiican oo lagu diirsaday oo qurux badan yahay ma jirto taageerayaal ka socda xulka gobolka Hawd iyo xulka Daadmareed oo isgacan saaray ama ay dhibaatadu dhex martay ma jirto haddaanu goob joogayaal ahayn dhibaato ay sameeyeen taageerayaasha Daadmareed iyo taageerayaasha Hawd runtii taageerayaashaasina way ku amaanan yihiin sidii quruxda badnayd ay uga soo qayb qaateen waxaan halkan ka cadeynayaa ciyaartii shalay to dhacday nidaamkeeda marka la eego sharciyan kubadda cagta Soomaaliland marka la eego iyo caalamkaba technically baa ahayd waxay ahayd wax u yaala garsoorka kubadda cagta ee xilliga hogaaminaya ee ciyaarta dhexdhexaadinaya ee go'aanka leh ee meesha ku jira calawalaha iyo way iskhilaafeen iyo garsooruhu laakiin markay halka maraso garsooraha ciyaarta dhexe hogaaminaya ayaa go'aanka qaadashada leh runtii anshax marinta ciyaartooyga marka noqoto cid walba oo ka tirsan xulka gobolka Hawd ee shalayto la daawanayay ku kacay anshax xumo aad iyo aad baan uga xunnahay waana u jecel lahay in qof walba wixii uu sameeyay shakhsi walba la anshax mariyo xulka gobolka Hawd waxa lagu ganaaxay 5 sano iyo 20 milyan oo Soomaaliland shilin yaa ku ganaaxay baa hadaba taala madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu saaka joogay oo uu ku soo kalahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyadoo uu madaxweynuhu maanta la wareegay wasaaraddii dhalinyarada iyo ciyaaraha go'aankan 5 sano ah iyo ciyaartooyga la ganaaxay waxa dhakada ah isagu ka masuula madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii qaranka weeye maxaa sababay inuu wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha uu yimaado oo uu yiraahdo go'aankan ha lagu dhawaaqo waxaan aaminsanahay in xaalad abuur ay jirto waxaan aaminsanahay in dagaal u dhaxeeya madaxweynaha iyo beesha degta gobolka Hawd uu jiro madaxweynaha Soomaaliland maadaama uu maanta la dagaalamayo oo xulkii gobolka Hawd oo uu ganaaxoodii isagu uu soo saarayo oo ay madaxtooyada ka soo baxaso waxaanu leenahay waad aragtaan madaxweyne aan shaqadiisii hayn madaxweyne ka soo talaabay wixii uu shaqada ku lahaa aniga fikirkayga markay noqoto ciyaartooyga xulka kubadda cagta ee Daadmareed ciyaar wanaag bay soo bandhigeen iyo ciyaartooyga xulka gobolka Hawd waa walaalo iyaga isku qabiila ciyaartooyga kubadda cagta Soomaaliland waa isku reer la ilaa sports weeye waa dad walaalo ah waxaan halkan runtii uga hambalyeynaya Daadmareed oo runtii shalay toole la siiyay guushi iyo dhibcihii ka dhacay garoonka kubadda cagta Hargeysa Stadium fikriyanna waxaan aaminsanahay inay sax tahay garsoorka kubadda cagta dhexe ayaa go'aan qaadashada mar walba leh dhibaatadu hadaba waxa weeye shakhsiyaadka la ganaaxay dhowrka sano lagu ganaaxay
wax maaha macquula xisbiga wadani ma aqbalayo go'aankan 5 sano ah ee la ganaaxay gobolka Hawd inuu ka maqnaado tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland sidoo kale xisbiga wadani ma aqbalayo in muddo 4 sano ah la ganaaxo xulka gobolka Togdheer xiriirka kubadda cagta Soomaaliland shaqadan ma hayo wasaaradii dhalinyarta kubadda cagta Soomaaliland shaqadan ma hayso shaqadan waxa la wareegtay madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu la dagaalamayaa xulka iyo gobolka Hawd beesha degta waa madaxweynihii ugu horeeyay taariikhda kubadda cagta Soomaaliland gacantiisa ay ka soo baxdo ganaax lagu ganaaxayo gobol dhan madaxweyne ku soo noqo sharciga ma aqbalayno in wasaaradii ciyaaraha aad gacantaada ku baabiiso ma aqbalayno xisbiga wadanina ma aqbalayo in aad u kala eexato dadka madaxweyne shaqo ka culus baa ku taala ciyaaraha iyo xulka gobolka Hawdba runtii waxaan aaminsanahay dhibaatadii halka ka dhacday waxa dusha saaran doona barasaabka gobolka iyo maayarka run ahaantii ciyaaraha gobolada waxa aynu sameysnaa ama loo qabtaa isdhexgalka bulshada ee uma qabsano inay dhibaato iyo rabshad kaga abuurno dalkeena waxa runtii nasiib darro ahayd oo shalay garoonka Hargeysa Stadium ka dhacday wax runtii aad looga yaxyaxo waxaan ugu horeynaan halkan ilaahu uga barayaa inuu caafimaad sare siiyo intii ku dhaawacantay ee shacabka hay'adda rasaasta nool la dhacay waxa kale iyaga laftooda aanu ilaahu barayaan iyagana caafimaad siiyo ciidankii booliska ahaa iyagana halka dhibaatadu ka soo gaadhay ee dhaawacaya dhagaxa ahaa runtii waxa wax laga xumaada shacab in loo adeegsado rasaas nool oo ciidankeena ay amnigu ay u adeegsadaan arrinkaas runtii aad iyo aad baan uga xunnahay waxa aanu qabnaa ama aanu arkaynaa in isdhexgalkii loogu talagalay kubadda in la isku dhexgalo faquuq ay xukuumadda kulmiye soo saartay in ku kala faquuqdo waxa taa daliil u ah maayarka magaalada Hargeysa barasaabka habeen ka hor ay ka sii hadlayeen iyagoo dadka u calaamad u kala sameeyay oo laha qolayna geesta ka soo gal qolayna geesta ka soo gal taasi waxay daliil u ahayd in labada dhinac isku muuqdaan dadku haday meel ka soo wada gal lahayn meel wada fadhiisan lahayn saddex gal lahaayeen waxaan qabnaa inay rabshad dhacdeen rabshadii shalay dhacday kama dhicin garoonka dhexdiisa balse waxay ka dhacday banaanka sababta banaanka ay tahay maxay tahay waa dadkii khasabka lagu saaray weey lagu dareerinayay waxaad moodaysaa in la lahaa banaanka isugu baxa oo rabshad la abuuray waxa iyaduna foolxumeyn ugu ah ciyaar la ciyaarayo marka intaasoo ciidana la soo dhigo ee wadooyinkii oo dhan la jaro ee haddana intaasoo dhibaato dhacdo nusqaan bay ku tahay wasaaraddeena amniga inay waxa soo kala ay runtii ay waddankeena ka dhacaan haddeenan ciyaar aynu qabanayeen amnigeeda maamuli kareynin waxa loo qabtay ciyaaraha haddaan ciyaar la qabtay taageerayaasha aan amnigooda la sugi kareynin oo waxa meesha ku jiraan oo dhowr boqol ahaa maxaa loo qabanaya ciyaaraha haddeenan capacity ga lahayn waxaan qabnaa inuu ciidankeenu uu sugi karo ammaanka laakiin uu ka xun yahay maamul iyo wasaaradda arrimaha gudaha u maareysay inay ka xun tahay ayaan runtii qabnaa waxaan u soo jeedinaynaa in wadooyinka la furo dhagaxaantu yaalaan meeshu ma aha xare ciidan meeshu ma aha goob dagaal oo lagu dagaalamayo waa wadadii halbowlaha in balaska talaabiyay waxaan soo jeedinaynaa dhagaxaanta laga qaado wadada la furo oo qodob koobaad shacabka waxaan u soo jeedinaynaa ku dhaqan magaalada Hargeysa inay nabadgelyadooda ilaashadaan inay ciyaarta si u daawadaan sharaf iyo karaamo leh boolis iyo ciidan kala qabanaya meeshii ma joogo waxa la idinka baahan yahay idinku nabadgelyada ilaashadaan ciyaartana si xarago loo qurux badan aad u wada daawataan waxaan u soo jeedinayaa maanta ciyaarta dhacaysa war ceebti shalay dhacday inay dhicin maanta ceebti shalay dhacday inay dhicin maayarka iyo barastaabku weli may tagin garoonka inta joogay inta ciyaaraha si socdeen haddana go'aanay ka soo saarayeen labadaan way ku fashilayeen shaqada ay u hayaan gobolkan Maroodijeex labadaan way ku fashilan yihiin shaqada ay u hayaan gobolka Maroodijeex tala waxay ka yaqaanaan halkaan hebel ha ka soo galo halkaan hebel ha ka soo galo nasiib darro ay rutiin ugu tahay waxaan u soo jeedinaynaa shacabka iyo taageerayaashaba dadka ku dhaawacmay wada kastaan
dhibaato intaa ka badan ma qaadi karno aynu wada ilaashano nabadgelyadeena aynu ilaashano garoonkeenna aynu ilaashano dhallaankeenna iyo haweenkeenna meesha lagu jirjiray lagu burka la dhacayo aynu wada ilaashano. Wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.